badbaadintii cajiibka ahayd ee Paul Rusesbagina. soo dhawow inta aynan u guda galin mowduuca aynu ka hadlayno fadlan subscribe sar channelkeena dunida maanta wad mahadsantahay. bishii Abriil sanadkii 1994 ayaa xiisad u dhaxaysa dadka Hutuga iyo Tutsiga oo kamid ah qowmiyadaha dalalka Rwanda iyo Burundi waxay horseeday xasuuq ka dhacay dalka Rwanda. Paul Rusesbagina oo ahaa maamulaha hotel Dismalin Colonies ee ku yaala caasimadda dalkaasi Rwanda ee Kigali. Paul waxa uu ka soo jeedaa qowmiyadda Hutu, laakiin xaaskiisa Tatiana waa Tutsi. Guurkooda waxaa dhaliilsanaa xagjiriinta Hutuga oo uu ku jiro Georges Rutuganda oo alaabageeyay ka ahaa hotelka uu maamulo Paul. sidoo kalena Georges waxa uu ahaa hogaamiyaha maxalliga ah ee koox ka mid ah Hutuga. xaaladda siyaasadeed ee dalka Rwanda ayaa ka sii dareysay kadib dilkii loo geystay madaxweynihii dalkaasi ee lagu magacaabi jiray Juvenal Habyarimana. Paul ayaa bilaabay in uu laaluusho kooxaha aan naxariista lahayn ee dilka geysanaya si uu u badbaadiyo qoyskiisa iyo dadka dariska la ah, kuwaas oo isugu jira labada kooxoodba dadka ka soo kala jeeda. kadib waxa uu hoy uga dhigay hotelka uu markaas madaxda ka ahaa si ay nabadgelyo u helaan. dad badan oo baxsad ah ayaa hotelka u soo cararay iyaga oo ka soo baxsanayay xariyaha qaxootiga ee qaramada midoobay iyo laanqeyrta cas ay gacanta ku hayeen. ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay oo uu hogaaminayay Colonel Oliver ma aysan awoodin in ay qaadaan tallaabooyin adag oo ka dhan ah xasuuqii xilligaasi socday. sidaas darteed muwaadiniinta ajnabiga ah ee u dhashay dalalka bannaanka ah ayaa laga daadgureeyay gudaha, balse waxaa laga tagay kuwa u dhashay dalka Rwanda. markaas oo aysan jirin meel la isaga tago oo muuqata, waayo dalka gudihiisa waxaa ku sugnaa kooxaha si daran dadka u ugaarsanaya oo leynaya si aanan naxariis lahayn waliba u dilayay. markii ciidamada qaramada midoobay ay isku dayeen in ay daadgureeyaan kooxo qaxooti ah oo ay ku jiraan Paul iyo qoyskiisa, waxa ku dhacday nasiib xumo daran, waayo wadooyinka oo dhan ayaa kooxahaasi u go'naa oo ma aysan jirin meel la maro. waxaana qasab ku noqotay in ay hotelka dib ugu soo noqdaan iyaga oo dadkii baxsadka ahaa qaarkood loo geystay dhaawacyo aanan sahlanayn oo halis ah, kuwaas oo ay u geysteen dadkii dalka ka waday qaska iyo fowdada. Paul ayaa badbaadiyay ugu yaraan 1200 oo qaxooti Tutsi iyo Hutu isugu jira, kuwaas oo ah kooxaha dagaalku uu ka dhaxeeya isaga iyo qoyskiisa oo ay ku jiraan 2 cunug oo uu dhalay iyo walaalka xaaskiisa, waxaana dib u dejin siisay dalka Belgiumka. balse Tatiana walaalkeed Thomas iyo xaaskiisa lama helin. xasuuqii ayaana dhamaaday bishii Luulyo sanadkii 1994. xasuuqan ayaa la sheegay in uu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu qatarsanaa qarnigii 20aad taariikhda aadanaha inta la og yahay ee dhaca, waxaana ku geeriyooday in ka badan 1 milyan oo qof oo aan waxba galabsan. dhowr bilood gudahood ayayna geeriyoodeen tirada intaasi la eg ee dadka rayidka ah. taariikhdana hore looma arag xasuuqaas oo kale. qisada ka dhacday dalka Rwanda ayaa laga sameeyay filin ay adag tahay in la daawado qiirada ka muuqata awgeed, haddana aan laga daali karin markaad u sii fiirsato dhibaatooyinka nololeed ee adduunkan aan ku noolnahay dadka loogu geysanayay. filinkaas wuxuu soo baxay sanadkii 2004, waxaana magaciisa la dhahaa Hotel Rwanda, waxaana filin sameeye ka ahaa Terry George. sidoo kale filinkan waxaa arbihiisa ama atoore ka ahaa Don Cheadle oo aan marna la ilaawi karin doorka jilitaanka ay uu ku matalayay ninkii qisadan laga qoray ee Paul Rusesbagina. sidoo kale filinkaasi waxaa qalanjo ka ahayd ama atiriisho Sofia Okonedo oo ah gabar u dhalatay dalka Ingiriiska, waana qofta matalaysay Paul xaaskiisa, taas oo lagu magacaabo Tatiana. qaab wanaagsan ayay u jishay sheekada filinkaasi oo lagu dhareerinayay qisada dhabta ah oo murugo iyo naxariis darro badan ku xambaarsan, taas oo ka dhacday adduunkan aynu joogno, gaar ahaan qaaradda Afrika, dalka Rwanda. sidoo kale ninka caanka ah ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka iyo xayawaanka ahna jilaa reer Mareykan ah waa Jacqueline Phoenix ayaa door la yaab leh ka qaatay isagii iyo saaxiibkiis Nick Nolte. sidoo kale buug ayaa laga qoray xasuuqa ka dhacay Rwanda, kaas oo uu qoray nin u dhashay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Philip Joravich.
buuggan ayaa magaciisa la dhahaa We wish to inform you that tomorrow we will be killed our families. buuggan ayaa soo baxay oo la baahiyey sanadkii 1998 waana buug qoraagu uu kaga warramayo markii uu tagay dalka Rwanda iyo waxa uu ku soo arkay iyo qisada saxda ah ee xasuuqi ka dhacay dalkaasi Rwanda sanadkii 1994 kaas oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 1 milyan oo rayid ah. in aan qayb ka mid ah dhacdadaasi idiin soo tabino waxa igu dhalisay in dad ehel ah oo dhibaato intaas la eg dhowr bilood gudahood isu geystay iyaga dhaxdooda haddana maanta ay ka heshiiyeen wax walba oo dhaxdooda ka dhacay iyo dalkooda gudihiisa waana tusaale u wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed. dalka Rwanda xasilooni nololeed iyo mid siyaasadeed ayaa ka jirta waqti xaadirkan. maxay kula tahay in qisadan Soomaalidu ay ka baran karaan? waad ku mahadsan tahay daawashada iyo dhageysiga mawduucan. fadlan saaxiibada la sii wadaag.